waqtiga haddii aad si fiican u nidaamiso si fiican u habayso waqtigaaga waxa uu noqon doonaa jaranjarada aad u marto successka ama achievement ama halka aad doonayso inaad u socoto ama shaqada aad doonayso inaad qabato haddaba maxaa keenay muxuu ahaa inaynu waqtiga ka hadalno mawduucan maanta doonaya inaan ka hadlo waxaan doonayaa inaan idinla wadaago tool amaba software dadka badankooda ay ka faa'iideysan karaan oo loogu talagalay in lagu maamulo waqtiga lagu maamulo shaqooyinka lagu maamulo waxbarashada iyo wixii loo baahan yahay oo dhan way programkan hadaba muxuu yahay ama softwarekan aan idinla wadaagay programkan ama softwarekan waxa la yiraahdaa Notion okay Notion ayaa la yiraahdaa waxa loo isticmaalaa waxyaabo runtii aad u badan okay oo dadku si gooniya mid walba ay hadhow markii hore u isticmaali jireen oo kala qaadan ay u isticmaali jireen ayaa meel la isugu keenay waana free to use amaba wax si free aad u isticmaali karto weeyaan oo aan wax lacaga lagu charge gareynaynin Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkaad kaba ka talonaysa kabihiisa la eega si maaragtay aad ugu kalsoonaan karto inuu shaqada uu ku qabanayo isaga laftiisu qabsado oo uu maaragtay qabsan karo isagu anigu AT baan ahay marka waxaan tusayaa Notion ama softwarekan aynu hadda ka hadalnay sida aan ugu shaqeysto ee aan shaqooyinkayga iyo maaragtay taskisa ama shaqooyinka ii yaala maalin walba aan ugu nidaamiyo ee aan ugu qorsheysto ee adiguna uga faa'iideysan karto adigoo ugu apply gareynaya kolba sidaad maaragtay adiguna u shaqeyso ayna ideaduna badanka way isku dhowdahayo project baynu ka hadlaynaa so projectga sidaad adiguna maaragtay u maamulayso iyo sidaan anigu u maamulayo aad isbarbar dhigi doontaa then saas ayaad uga faa'iideysan doontaa marka waxaynu yeelaynaa waxaynu ka bilaabaynaa in aynu from scratch ka bilowno wax walba sidii qof ku cusub oo aan hore u isticmaalin waxa la yiraahdo Notion ayaynu iska soo qaadanaynaa inaynu nahay computerkana aanu inoogu jirin ama aynaan hore u isticmaalin ama tabletkaaga ama kolba meesha ay shaqadaada badankeedu ka dhacdo marka waxaynu yeelaynaa waxaan la soo degayaa imika applicationkii baan la soo degayaa la yiraahdo Notion marka versionno badan buu leeyahay marka haddaan yiraahdo download Notion marka ugu horeysay aan soo dhex galo waxa way weydiinayaa muxuu ahaayay versionka amaba maxaan haystaa so download for Windows baan leeyahay automatically wuxuu detect gareeyay computer Windows inay kaga jiro so Windows kaasaan u download gareysanayaa marka installationka processkiisu sida caadiga ahayd uu ku dhamaanaya markaaba oo waa si iska very basic file-kuna aad uma weyna marka download gareysay uu downloadka ku dhameeyo ayaad install gareyn doontaa markaad install gareysa hadaba ayaynu processka halka ka bilaabaynaa wixii inta ku xiga waxaynu sameynaynaa Notion main furana marka ugu horeysay aad soo gasho Windowskan baa ku soo baxaya oo koodhanaya maxaad doonaysaa inaad ku gasho amaba sideeba doonaysaa inaad u gasho haddaanad account hore haysanin marka waxaad leedahay badankeenu dadku waxay wada haystaan Google shaqada ugu badanna badanka Google bay ka dhacdayo email buu haystaa qof walbaaba marka waxaynu leenahay continue with Google so continue with Google markaan iraano waxa ku soo baxaya kaygaasaan markaa ku gelayaa open pan leeyahay automatically degdeg buu markaa waxaan ku wari igu furay markiiba haddaad arkayso so marka imika applicationkii baynu ku dhex jirnaa waxaynu ku dhex jirnaa Notion wax walbaana si fiican baynu ugu shaqeynayaan Windowgan yar baa ku soo baxaya markaaba oo ku sheegaya muxuu ahaa calendar application la yiraahdo iyadana sameeyeen oo Notion-ka kugu xidhmaya oo dhawaan la sameeyay waayahay hadaba marka ugu horeysa ee maaragtay sida soo gasho waxa kale oo maaragtay lagu sheego lagu sharaxaya Q&A ama su'aalaha ugu badan ee la isweydiiyo waan iska dhaafayaa automatically dhowr page bay igu jira haddaad halkan eegto dhowr page bay igu jira oo muxuu ahaa get started on mobile haddaad applicationka mobile-ka ka isticmaalayso marka okay hadaba markaynu imika Notion ka hadlayno badanka laba dariiqo ayay dadku u sameystaan shaqadooda waxay u baahan yihiin okay labada dariiqo waxay kala yihiin inaad page from scratch ka bilowdo oo page aad ku maamulayso mashaariicdaada iyo qoraalka iyo waxbarashada iyo jimicsigaaga iyo wax walba brainstormingkaaga iyo researchka macnaha wax walba oo aad u baahan karto in aad balaan gareyso ama aad qorsheyso
ayaa maaragtay aad page-kaaga ku samaysan kartaa way laba dariiqo un baana loo samaystaa baan yidhi labada dariiqo waxay kala yihiin midi waa mid page cusub intaad samaysataad odhanaysaa anigaa sidan doono ka dhiganaya page-kaas ka labaadna waxa weeyaan templates wax la yidhaha baa jira oo hore u diyaarsan oo designo amaba fikraddii waa la isla garanaya badanka fikrado badan oo la garanaya jira oo ah project sidee loo maamulaa research sidee loo diyaariyaa product sideebaa informationkiisa loo qoraa task sideebaa loo maamulaa journal sidee loo sameeyo waxyaabo badan oo waxa jira la og yahay sida ugu macquulsan ama sida traditionalka ah ee dadku ay garanayaan ee loo sameeyo marka kuwaasoo kale ayuu kuu siinayaa as an option in aad isticmaali karayso qaar hore loo sameeyey way haddaba waxaynu leenahay page cusub baynu samaysanaynaa inagu page cusub baynu samaysanaynaa waxaan leenahay add page so add page markaan idhaahno halkan haddaad arkayso waa kan so automatically waxa halkan markaa untitled page la yidhaahdo ayuu inoo furay oo cusub my work okay my work bayban nidhi so my work markaan idhaahno marka halkan waxaad arkaysaa write something or press space for AI haddii kalena waxaad samaynaysaa forward slash baad samaynaysaa for comments so forward slash haddaan ku dhufto wuxuu soo saarayaa optionska amaba maxaad doonaysaa inaad samayso ma waxaad doonaysaa inaad text qorto ma waxaad rabtaa inaad page uu kuusii dhex galo oo kuusii sameeyo so wakaa page kaluu inoo sii dhex galo inoo sameeyey ma waxaad rabtaa inaad to do list samaysato oo ah muxuu ahaayey amaba aad tiraahdo work 1 so see work 2 so sidoo kale muxuu ahaa haddaynu imikoo kale iska masaxna kaas waxyaabo badan buu leeyahy markaa headingkii buu leeyahay oo sizeski kala waaweynaaya wax walba oo laga yaabaa inaad ku taqaanay muxuu ahaa aad ku taqaanay word documentskii aynu isticmaali jirnay Microsoft Wordkii oo kale badankoodii halkan waad ka helaysaa waayahay taasi waa haddaba haddaad doonayso page blank ah inaad samaysato oo aad adigu waxaad doonaysa aad ku qorto ama aad ku bilowdo daad arkaysa waxaasoo dhan uu kuu qabanayaa automatically wax walba waxaa sii jira wax sii diyaarsan oo maaragtay aad samayn karaysa mar walba weekly plankaas haddaad doonto ku dhufanaysaa so weeklygaasaad maaragtay waa template yaroo kooban oo optionska halkan inoo yaalla ah waayahay taasi waa dariiqo ka mid ah in aynu samaysano maxay page aynu eber ka bilownay oo sida doonta aad u qaybinayso oo adu sida doonta aad ka dhiganayso way dariiqada labaad ee haddaba aynu u maaragtay u isticmaali karno Notion amaba sida aynu projectkeena u maamuli karno ee labaad waxa weeyaan in aynu template diyaar ah samaysano okay so bal aynu isla eegno templateska amaba waxyaabaha hore ee diyaarka ah maxaa aad isticmaali kartaa ee hore loogu sii diyaariyay systemka ku sii jiray oo marka haddaad imika templates ku dhufato waxa ku soo baxaya windowgan templateska oo dhan ku sheegay hadda dhinacan bidixda eegto waxa halka ka muuqdo to do list waad arkaysaa to do listku markaas sida halkan ka muuqato ayuu ekaan doonaa oo to do listka ma taskiskii maxay ahayd lagu shaqaynayay la isticmaalayay ama taskiskii lagu maamulayay mashaariicda ayaa maaragtay sidan oo kale u soo baxaya projects and tasks project iyo yara faahfaahsan weeyaan kani iyagoo sprints wax la yiraahdo weeyaan meeting haddaad doonayso isaga laftiisa inaad maamulato halkan aad isaga laftiisa ka samayn kartaa oo markaasi calendarkii wixii baad ku xidhaysaa isagana docs ama documentations haddaad u baahan tahay halkan aad ka samaynaysaa projectskaaga iyo waxyaabaha documentations aad u samaynayso wiki oo isaguna ah muxuu ahaye productskii waxyaabihiisii la xidhiidhayay oo dhan in aad AI meeting summaries so product specs oo kale ayaad isaga laftiisa samayn karaysaa haddaad halkan eegto informationka la xidhiidha productkii oo dhan engineeringkii haddaynu u nimaadno isagana muxuu ahaayey sidoo kale waxaynu halkan ku haysanaa campaign brief social media calendar so muxuu ahaayey haddaad social mediahaaga doonayso inaad maamusho oo kale waxyaabaha aad u isticmaali karto templatekan ayaad isticmaali karaysaa haddaad dhinaca engineeringka markaa ka gasho so imika oo kale engineering templateska diyaarka ahi waa kan imika kan la yidhahdo engineering tech spec
inaad informationkii la xidhiidhayay halkan problem statementkii aad ku samayso goalskii aad projectka ka lahayd aad samayso muxuu ahaa waxyaabo badan oo runtii useful ah sidoo kale engineeringka amaba dhinaca software developmentkana haddaad muxuu ahaayey imika API referenceka ka la yidhaahdo waxaa lagu talagalay API documentationska iyo waxyaabaha in lagu sameeyo haddaad arkayso imika API system uu leeyahay structurekiisi iyo xaabihiisii ayaa lagu dejinaya so aniga laftaydu kan oo kale ayaan isticmaalaa markaa documentation baad diyaarsan kartaa hadhow toolana dadka la share garayn karaysa sidoo kale design portfolio design so waxyaabo badan buu leeyahay runtii oo ah muxuu ahaa waxaasoo dhan imika eeg templates weeyaan dhammaantood waxaynu arkayno oo dhan oo kii aad doonto aad ka qaadan karto dhammaantoodna waa free aad ku isticmaali karayso way haddaba waxaynu soo noqonnaa inagu ka projectka ah si aynu u eegno sideed u maamuli kartaa mashaariicdaada ama shaqadaada iyo waxyaabahaas sidee baad u maamuli kartaa so kan oo kale ayaynu leenahay get template markaynu idhaahno sidan oo kale ayuu inoogu samaynayaa projectkeena magac baad u samaysanaysaa waxaabaad leedahay muxuu ahaayey my projects oo kaleba dhe so haddaad markaa qof adigu dee naftiisa u shaqeeya tahay amaba qof shaqadiisa iyo waxyaabihiisa maamusho tahay so markaa halkanna waxaynu ku haysanaa wixii la odhan jiray boardkii amaba kanban viewgii oo ah to-dogii ama oo ah taskista siday shaqada aad ugu kala hayso ama aad ugu kala maamulayso so markaad imika oo kale samaynayso sidan uu kala qaaday so project buu kala jebinayaa 3 project oo kala duwan ayuu imika halkan oo kale inoogu sameeyey haddaad arkayso markaa imika oo kale haddaad doonayso task cusub inaad ku darto markaa projectyada hadhow toole waad haysa waxaad option u haysataa inaad magaca ka bedesho waxaad doonto tidhaahdo my new project oo kale inuu bixinaynaa so information kale oo extra oo gudaha marka loo sii galo ayaa ka buuxa oo templateka maaragtay hadda la socday so waxyaabaha figma oo kale haddaad ku dari kartaa halkan kusii jirtaa so ownerkii markaa projectka waxa muhiimka waxa weeyaan qorshaha imika planningka amaba statuska uu ku jiraa maxay tahay so statuska imika uu ku jiraa waxa weeyaan waa planning dhowr option oo kale ayaa iyaguna jira waa backlog oo muxuu haddii from scratch marka laga soo bilaabayo si dib loo review gareeya ee backlog la geliyaa planning in progress post ama waxyaabaha la joojiyey done iyo cancelled so projectka marka haddii ay dhowr qofi kula jiraan teamkaaga oo kale haddii cid kale oo kula isticmaalaysa ay jirto amaba cid kale oo aad isku xidhan tihiin oo notionkooda aad hayso waad halkan aad ku collaborate garayn kartaan ama aad ku soo dari kartaa projectka muxuu ahaa projectkan siduu qofkaasi uga shaqeeyo isaguna qeybtiisa uu ka qaato waayahay waqtiga oo maaragtay laga shaqeynaya halkan ka dooranaysaa so waxaasoo dhan marka dhammaystirto imikoo kale markaa projectka imikoo kale task cusub haddaynu kusoo darsano in idhaahno muxuu ahaayey shaqo ama imikoo kale shaqo gaaban oo kale ayaynu nidhi so markan shaqo gaaban bay nidhiba kasoo qaad qofka anigaaba Abdirahman baa samaynaya dateka waqtigu due dateku waa kaas waxa weeyaan 8 May amaba kasoo qaad 20 May priorityga projectguna amaba taskkan baan u jeedaa iyaduna waxa laga yaabaa saad doonto inaad ka dhigato iyaduna prioritygana adaa set garaysanaya oo ka dhiganaya low baad ka dhigi kartaa oo kale summary haddaad u baahan tahay oo kale halkan aad ku qoranaysaa oo la sii xidhiidha waxyaabihii kale haddaad taska laftiisa doonayso inaad gudaha usii gashana dee waa adigana halkan aad kasii geli kartaa subtasks baad kusii samayn kartaa waxyaabo kale oo extra ah oo maaragtay sii hoos gelaya sidoo kale information kale halkan waxbaad ka bedeli kartaa tagiska oo applicationkan amaba featurekan aad samaynaysaa waa nooc imikoo kale hadduu website aad ka samaynayso yahay ama mobileka aad isku darayso halkaasaad saa ka odhanaysaa waayahay markaad markaa shaqo gaabantaa bilowdo maadaama oo statuskiisuna aynu arkayno waa not started boardka marka waa boardka halkan aynu board leenahay amaba sabuurad sidaynu naqaanay muxuu ahaayey ama kanban viewna waa la yidhahdaa ayuu kuu soo gelayaa waa kan halka ugu hooseysa ku jira so statuska amaba kolba shaqadaadu taskisku halkay kuu taagan yihiin waa not started in progress done so
shaqa ahaan marka shaqa laga hadlayo in qofku uu focuska saaro shaqada uu ka shaqeynayo waxyaabaha ugu wanaagsan weeyaan ee techniqueska ugu wanaagsan weeyaan ilaa imika cid walba isticmaasho muxuu ahaayay technique la yiraahdo Kanban view ama design-kan ama structure-kan aynu hadda arkayno marka waxaad leedahay shaqo gaabantii aad bilaabayso imika kale feature-kii shaqo gaaban baad ka shaqeynaysaa oo qabanaysaa oo doonaysaa inaad imika ka shaqeyso waqti baad set garaysatay wax walba diyaar garaysay waxaad leedahay marka in progress halkan aad u drag garaynaysaa ama aad u jiidaysaa in progress baad gelinaysaa in progress-ka markuu ku jiro uu sidaa maaragtay halkaa ku yaalo marka dhamaysana hadhow toole waxaad leedahay waa completed-kaasaad markaa hadhow toole ku tuuraysaa sidaas ayaanu maaragtay ku dhammaystirmayaa oo statuskiisu isku bedelayaa halkanna waa tan dhan ay noogu soo qorantay so markaan taskiska ka hadlaya amaba sidan u maamusho anuu projectyadayda muxuu ahaayey sidan oo kale ayaan isticmaalaa waxaan sameeyaa oo aan intan kaga yara duwanahay filterska amaba project imika markaynu ka hadlayno imika kale projectgan muxuu ahaa imika kale my new project filterska uu haysto oo kale ayaan halkan ka badiyaa oon muxuu ahaayey qaar fields kale aan kusoo darsadaa oo sida company oo kale companyga shaqada loo qabanayo ama client muxuu ahaa waxyaaba noocaas oo kale aan kusoo daraa so marka haddaynu intaa ku eegno that's the template so template kale haddaynu imika kale kaba soo qaad furno templatedyada kale haddaaba doonayso imika kale in aad ka shaqayso maxaan idhaahdaaye wait markaynu imikoo kale notion ka hadlayno notion looguma talagelin oo kaliya ta engineerska amaba dadka technically waxyaabaha engineeringka ku shaqeeya ee waxa loogu talagalay xataa operationska kale ee departmentska kale ee ay shaqadu leedahay oo waxay munaafacaadsan karaan oo waxay ardaydu munaafacaadsan karaan waa wax cid walba ay ka faa'iideysan karto oo options badan leh anigu halkan kuma soo koobi karayo muxuu ahaayey featureska amaba faa'iidooyinka uu leeyahay notion waxay imikoo kale halkan aad ka arkaysaan applicant tracker oo ah applicantska amaba dadka shaqooyinka soo xaraysta dadka human resourceska shaqaalaha human resourcesku sideebay maaragtay u dabageli karaan oo ay kala maamuli karayaan oo saa u samayn kareen so template diyaara weeyaan haddaad halkan ka arkaysaan so kan template-kan oo kale aynu furanaynaa oo aynu dib u furaynaa dan haddaad imika template-kan eegto ma arkaysaa so dadka imika kale shaqada soo xaraysta all applicantski waa kuwan dadka soo wada xaraystay shaqadii oo kale kolba qofkii aad u baahan tahay ee cusub ee maaragtay shaqo soo xaraysta oo kale CV-giisii ama resume-giisii aad hesho ayaad halkan gelin doontaa roolka loo dalbanayay muxuu ahaa so engineering backend baaban leeyahay stageka waxa weeyaan halka ugu horreysay baan ka bilaabay waa lead amaba waynu qofka imikaynu stagekii ugu horreeyay buu marayaa emailkiisi baad halkaa gelinaysaa hiring managerkii baad gelinaysaa imika anigaaba geliyay userkayga resumegiisii amaba CV-giisii uu inoo soo diray baad gelinaysaa profilekiisii LinkedIn-ka baad halkaa gelinaysaa amaba any other profile uu leeyahay hadduu Behance haysto haddii uu haysto muxuu ahaayey GitHub profile meesha uu profilekiisa dhigto shaqadiisii waxyaabahaas ayaad halkan gelinaysaa waayahay so haddaad markaas sii dhex gasho basically fieldskan adiga halkan oo dhan maaragtay sii buuxbuuxin kara haddaad doonayso employment so employmentku so waayahay haddaba haddaad imikoo kale by stage tiraahdo ood maaragtay tabkan kale ku dhufato marka halkan waxaynu ka halkaynaa wixii lead ah maxaa shaqada lala jeclaaday maxaa imika lala raadinaya shaqada amaba dadka markii ugu horreysay soo galay CV-goodu ina soo gaadhay ayaynu halkan ka dooranayna ayaa halkaa inooga muuqdo oo leadka micnaheedu tahay screen amaba screenku waxa weeyaan qofka marka CV-giisa lasoo qaada ee maaragtay the informationkiisa iyo wixiisa iyo profilekiisa iyo meelihiisa iyo dhan maaragtay la wada eegayo si loo hubsado inuu qof positionkan u qalma iyo in kale inuu yahay so marka qofkaasoo kale waxaad leedahay waad soo jiidaysaa ninkii maxamed ahaa haddaad arkayso waa ka screening buu maraya hadda marka hadduu interviewga processkiisa soo gaadhana interview baad markaa leedahay marka hadduu offer soo gaadho oo offer loo bandhigana halkan aad markaa soo gelinaysaa processkii dheeraayee HR-kii ayuu maaragtay ku soo koobaya marka u dambaysana maxamed hadduu hire yahay saasaad u hire garaynaysaa so templates badan oo nooc walba leh ayaa ku jira notion oo aad sida doonto uga faa'iidaysan karayso waxaa jira markaa
feature cusub oo amaba hab cusub oo maaragtay iyada lafteeda looga faa'iidaysan karo Notion oo ay dhawaan kusoo bariyo dhaweytooda kusoo dareen wax la yiraahdo Notion AI Notion AI haddaba sidee baad u isticmaali karaysaa marka haddii mko kale page cusub aad bilowday aad doonayso inaad ka fikirto waxa aad doonayso page-ka inaad ku qorto amaba aad doonayso inaad uga faa'iidaysato project inuu yahay brainstorming inuu yahay ideoyin inaad sharaxdo haddii maaragtay aad ku dawaqday post amaba social media post aad productgaaga kaga hadlaysay oo aad soo dhigaysay iyada lafteeda waad weydiin kartaa so marka post kaasoo kale marka doonayso AI-ga inaad la hadasho waxa leedahay space marka tiraado halkan aad markaa ka dooranaysaa brainstorm ideas blog post outline marka isagaa kuu soo dhigaya optionska amaba waxyaabaha aad samayn karayso you can just click on see more haddaad doonayso sales email recruiting email pros and cons so imko kale waxaabad leedahay pros and cons baaban doonaya inaan ka ogaado muxuu ahaayey something amaba waxaaban leeyahay waxaan u baahanahay creative story day okay so write a creative story about qor creative story amaba maaragtay sheeko maaragtay creative oo aad u wanaagsan qor about ka qoro kale waxaan leeyahay about my new mobile app okay amaba waxaan leeyahay about my new music mobile app okay so I'll just click on enter where is it waxa ku qabtay about my new music app so AI is writing so see my new symphony a musical journey so haddaad arkayso wuxuu samaynayaa muxuu ahaayey hadda halkan wuxuu inoogu qorayaa creative story aynu ka dalbanay this is very cool let's see once upon a time in the heart of Silicon Valley a vision an idea that he believed he could change the world of music Alex was developing a revolutionary music app which he named Symphonia waxaan oo dhan basically waa creative waa story uu sameeyey hadda maaragtay ama waa sheeko uu sameeyey oo uu ka keenay a musical journey amaba fikraddii aynu u dhiibnay ee appkii ahaa so taa lafteedana waad u isticmaali karaysaa muxuu ahaye waxaynu naqaano Notion I hope inaan ka fargareeyay qodobo muhiima oo aad uga faa'iideysan karto muxuu ahaayey Notion aniguna waxaan idinka tusayay muxuu ahaayey dhinacan anu ka isticmaalo ama maadaama aan ahay IT projectkayga sidan ugu maamulo iyo waxyaabaha sidan u isticmaalo so idinkana waxaan rajeynayaa in aad maaragtay ka dhex aragto shaqadaadu sidaa ay tahay so yes try it out waxaan oo dhamina waa free wax imika ilaa imika feature lacaga maynaan isticmaalin majority-ga shaqada aad personalka ee qofku u baahan yahayna badankeedu amaba waxa muhiimka ah oo dhami waa free lacagna cidi kuma weydiinayso maaragtay it's free so yes thank you very much